quraanka kariimka inta la akhriyo ma la oran karaa waalidkii iyo dadkii qaraabadaha ilaahay ajrigiisa gaarsiin waa mas'ala khilaafiya laakiin culimadu waxay u badan yihiin maya looma akhriyo daliil baan ku soo aroorin wixii cibaado ana waa in nabiga laga hayaa calayhi salaatu wasalaam oo lagu dayanayo ducadii iyo sadaqadii oo kale waa laga hayaa rasuulka quraankana waa ku sugan tahay waliba ducadu sida daraadeed masalada qowlka xooga badani waxa weeye imaam shaafici sida uu qabo in dee loo duceeyo oo sadaqa waalidkii loo bixiyo mooyaane in quraanka aan loo akhriyaynin oo halka Ahmed ibn Hanbal iyo Shaafiiciyadu way isku khilaafsan yihiin aymada qaarkoodna waxay leeyihiin maadaam sadaqadii loo niyoonayo inta laga soomo waalidkii laga soo xaji karayo cibaadooyinkaas ayuunbuu la mid yahay quraankuna laakiin qowlkaasaa loo badan yahay ducadu baad u badin doontaa waalidka iyo